marka sida labada socotaan zoom badan soo qaadanay oo inta badan laakiin asaasiyaadkii ku saabsanaayeen muhiimadeena laakiin waxay ahayd in qofkii ugu hooseeyo oo baawarka intuu nala soo raaco ilaa dadka ugu koreeyana u noqoto revision sidaas kula socdaan muhiimadda intuu sameynayna waxa waaye sida labada socotaan qof walbo oo waxa waaye forecast yaqaan inta badan dadka walaalihiis wuxuu sameeyaa uu ka xasdaa wixii yar uu yaqaano haddii uu beri dad bixiyana isdhihi maayo waxaan waa lagula qaybsanayo wixii yar suuq ka soo galaya qof hebel kula qaybsanaya ma ahan suuqan sida labada socotaan 5.3 ilaa 5.6 trillion maalintii la saddex mariyaa ninka walaalka 5.3 trillion akoonkiisa ku dhici meesay inuu waxa waaye uu sameeyo ishak uu walaalkiis kale asigana opportunity-gaas u baahan oo maybe inuu shaqo la'aan hayso ama shaqadii uu ka shaqeysto shaqo enough ku ah aysan ahayn uu ka caawin lahay uu dhahayo no way inuu asiga lacag ka sii sameeyo qofkaas uu rabo oo inuu wax ka qaato rabo ama somehow dad qaar waxa arkaysaa daadad wax yar faa'iideeyo wuxuu ku leeyahay you have to pay ani waa soo bixi adigana bixisid waa ani koorsooyinka inta badan xitaa ay gadan jiray waaga suuq baran jiray almost just for free qof walba ku siin jiray anyone oo waa u baahanahay forecast u baahanahay waxa dhigi jiray koorskan qaado anoo lacag badan ka bixiyay oo isla markaasna adhehelin adaa lacag ka bixiyay qofkan in lacag ka qaadid waay ilaa hadda ana ka bixin hadii qof kale walaalkii kale aniga wanaagsan waxa jiro inuu siiyo laga yaaba qofkaas anigana walaalkii waa isagana waa isku jixmeeyay waxa ka xasdadan waxa aniga kiligii wada qaadan kara ma ahayn haddii aniga Soomaali ahaan dhan oo dhalinyar ahaan dhan u wada galno suuqan oo aan dhahno waa ka wada shaqaysanayna waa naga badan yahay saas leeyahay caalamku idiloo ka wada badan yahay sida hadda ka hor mar idin sheegan waxa idin dhahay okay sida hadda ka hor idin wada sheegan waxaan dhahay suuqan dhaqaalaha Afrika soo gal yearly iyo maalinkii lacagta la saddex mariyo waxa waa laba meel kala joogtaa dhaqaalaha Afrika sanadkii soo galo dhaqaalaha waa wad qaaradu idil waxa lagu qiyaasaa 2.9 ilaa 2.6 bilyan inuu yahay maalinka suuqan 5.6 saddex mariya marka way oo qof walaalkaaga oo adigoo kale oo rabo inuu meel gaaro inuu hami leeyahay oo wax hasday halkaas marka ugu soo tagno arimaas muhiimadda caawimaanta Zoom ku sameeyana waxay tahay dad badan oo waxa jira suuq way yaqaanaan dad badan oo suuqii bilowyaa way jiraan dad badan oo suuq meel lax ka joogan way jiraan laakiin waxa jiro qaladaad badan oo qof walba uu galo markuu bilow yahay iyo markii uusan haysan qof mentor oo wax u sheego mar walba oo daba socdo oo qaladaadkaas jiro qaladaadkaas marka waxa muhiimadda ugu weyn oo aan u sameeynayo waxay tahay Zoom-kan maanta qaladaadka jiro ee anaga inaga dhaco markii aan suuq ku jirno iyo sababaha u dhacaan inaan ogaano waa muhiimadda kuwaad aan Zoom ku sameeyay ma aha 10 cusub ah idin baraayo ama wax oo isleeyahay laakiin waa wax aniga intii soo baroweeyay oo waaga idinka in la mid ahay soo qabsadeen qaladaadkaas inta qoray aan ogaaday inay yihiin waxyaabo badan dib u dhac u keena inaad suuqa ku soo jirtid waxyaabo badan kaani jibina suuqa inaad ku soo jirtid waxyaabo badan oo kugu dhiirigelinayo igaraadino hal mar okay waxyaabo badan oo suuqii kaani jibinaya ay jiraan marka waxyaabahaas oo idil marka isku soo calculate gareey waxa arkay caqabado hadda dad badan oo group ku jiro iyo channel ku jiro ee heestaan inay jiraan oo walaalihii la mid ah soo muhiimadda marka Zoom-ka maanta u sameynayna waxay tahay inaan aniga qaladkaas oo aniga iga soo dhacay intiinaan kale inuu idinka dhicin oo aad ka digtoonaataan si suuqan hamis sare ah ugu sii gaartaan sida labada socotaan suuqan forex wuxuu shaqeynayaa ilaa in muddo ah inuu oo naga horeeyay waa soo dad badan ka soo shaqeystay oo maanta millionaire iyo billionaires ku jiraan dad badan noloshooda ku bedelayeen dad badan wax badan ka qabsadeen oo caalamka dad badan oo Soomaali oo xataa qaadkood jiraan oo lacag ku filan ka sameeyeen ma sha Allah Ilaahu barakeeyo muhiimadda marka waxay tahay anigana sidaas oo kale inaan noqono wax loo yaqaan financial freedom qof walba inaga mid inuu dhaqaale xor intuu haysto oo iskiis u shaqeysto oo qof uu ku tiirsanaanin oo qof u shaqeynin sida labada socotaan hal mid idin sheega waxay tahay qof marka aad rabtid ina noloshaada horumar ina gaarsiisid marka aad am somehow ina aad rabtid ishak ina wax aad qabsatid ama wax walba ha noqdaan wax walba marka bilaawaysid laba go'aan la qaataa labada go'aan qaadanaysa waxay tahay kow marka ugu horeysa waxa isweydiinaysa waxaan aad bilaawaysid haddii aad taqaanaan nin loo yaqaan Warren Buffett waa ninka suuqan
investorkii adduunka ugu hanti badnaa oo suuqan lacag ka sameeyay waayo stock iyo suuqan lacag ka sameeyay macnaha ma jiro qof kaga horeeyay kagana dambeeyay oo asal lacag intuu ka sameeyay la mid ka sameeyay marka fikrada uu ganacsiyo badan oo sameeyaa inta badan maadaama qof guuleysto uu yahay adduunku ala wada socotaan waa la wareysanayo waxa la sheeg sirta ka dambeeyay guushaada maxay tahay iyo qaabkay ku soo guuleysatay waxaas la weydiinaa marka hadaladiisu waxa kamid ah wuxuu dhahay hadii aad ina adiga aad iska u shaqeysatid waxa ku fikirtaa u dhahay 20 fikir ganacsi 20 kaas oo as leedahay waa hadii aad qaadatid waa successful waa as leedahay the main wuxuu sameeyay 20 kii markii aad soo dooratid okay marka wuxuu dhahay 20 ganacsi fikir ganacsi sameeyso 20 kaas fikir ganacsi ugu wanaagsan as leedahay ganacsiyada jiro soo qoro warqad ku qoro 20 kaas marka qoratid wuxuu dhahay shanta as leedahay 20 kan shantaana kaga muhiimsan as leedahay ay calaamadeeyo dhahay mar alaal marka shantaas 20 kaas ka calaamadeysid meesh ka sii baxayso 15 meesh ka baxayso wuxuu dhahay hadana shantaas oo business as leedahay oo u fiican yihiin horumar noloshada ku gaarsiin kartaa dhaqaale fiican oo ku abuuri kartaa wax badan noloshada kaga bedeli kartaa mar alaal marka shantaas heshido dhahay as dhigirta shantaas waxa fiirsa halka xabo ee ugu muhiimsan oo hadana as leedahay kulligood uu ka wada qaalisan yahay oo kana kaalinta kood ku jiro marka kaalinta kood kii heshido dhahay 19 kii xabo hore u soo qortay dib ha u fiirin that means waxaan waa waxa adiga niyadaada ku soo sheegtay inay yihiin the only way you can succeed ku guuleysan kartid waqti inaad u baahatid inaad gelisid marka wuxuu dhahay 19 kii dib ha u fiirin 19 kii dib ha u fiirin macnaheedu wuxuu kala jeedaa mataqaana excuse inaad u heshida la diida inaad dib u laabato maadaama wadada guusha aad dooratay ee wadadan inaad tahay guusha inaad ku qaadi doonto in ayada taa marka aad ogaatay isla markaas waxa la diidaa marka 19 kii inaad dib u fiirisid excuse ah helay tusaale kale hadii aad dhahdid kan hada ku fil garow kana fiirina kan hada ku fil garow kana fiirina kan hada ku fil garow kana fiirina almost waqtigaaga loo isgareynaysa mid kale waxa ogaanaysa wax walba oo adduunkan marka aad ina qabatid waxay leeyihiin their own obstacles leeyihiin caqabadahooda oo zaad u dhib badan oo rafaad ah qof walba inaga mid ah maanta adduunka soo guuleystay hadii la weydiiyo waxyaabaha ugu dhibka badnaa wuxuu ku sheegayaa waxyaabo tiro badan oo adigan qaadan lahayn hadii amaanta meesha aad taagnaan lahayd marka qof walba oo sabro oo dulqaato oo ku celceliyo oo constant ah waxa qof guuleysanayo waa muhiimada koowaad waa taas sida loo socdo sheeko waxa jirto inta badan inkastoo aan rabo inaan soo duubo waxa la dhahaa 3 feet from gold waa niman oo Mareykan waxay rabeen dahab inay qotaan ayagoo khibrad fiican u lahayn isla markaas waxay go'aansadeen buuraha California inta tageen dahabkii inay qotaan ay rabeen markii meeshii ay tageen qalab ay gateen lacag badan isgeliyeen meeshii ay tageen dahabkii inay buurihii ay bilaabeen inay dahab qodaan dahabkiisa u qodayeen marka waxa jirta dahabkii markii la qoraayo daawo waxa jirta dahabka cadeen wax inay dahab soo socoto kale oo daawadii arkeen isla markii dhiirgelinay heleen dahabkii waa mashiino badan ay u baahdeen lacag meesaysan lacag ay soo amahsadeen marka si dahabkii u qodaan dahabkii in muddo markay qodayeen nimankan wax natiijo ma arkaan marka ugu dambeyn waxay go'aan ku gaareen waxay dhaheen niman yahow saan mana qabato waqtigeena waa iska loos gareynay inta noo dhiman asaf gareysano waxaana meeshooda iskaga soo gabagabeeyno isla markii waxay sameeyeen dahabkii asigoo wax yar ugu dhiman yahay nin meesha deegaanka ay dahabka qodayeen waxay dhaheen niyo alaabta nooceemiyo naga gad oo si aanan wax noogu tar aan inteen baawar xitaa inta goboladeen ugu laabano alaabtii lacag yar oo micno leed ka siiyay ninkii marka wuxuu sameeyay nin engineer oo raadiyay oo cilmigaas yaqaano iyo dahabkii macdankiisa loo qodo ninkii uu wuxuu dhahay nimanyo mashruucaan raba inaad si dhameystirto niman noocaas ah jireen oo hawshan inta soo wadeen marka waxa rabaa inaad si dhameystirto maxaa iiga dhiman oo talo maxay sii kartaa oo aad ku gaari karaa markii dahabkii ninkii uu fiiriyay wuxuu dhahay dahabka waxa ka dhiman 3 feet mataqaana waa 3 taako oo gacantaada 1 2 3 hadii loo mar hataa yaambada wax qodayeen hadii ku soo dhufan lahayn almost way ajiif gareyn lahayn marka sheekadaas waxa idin kugu soo qaatay guusha ma ogid meesha adiga ay ku jirto guusha meesha adiga ku jirto ma ogid mar walba waxa loo baahan constant ina ahayd aad dhabar adeegto aad sabartid aad dulqaadatid laakiin waxa la rabaa options kaas oo idil inaad dulqaadatid inaad wax saxadid inaad waxa ku gaari kartaa inaad samaysatid jadwal adiga ku shaqaysid oo noloshaada isku manage garaysid aad isku imtixaantid oo maalinkii hadda dhinac martay isku xisaabtantid aad dhahdid waxa samaysay khaladkaas maanta waxa samaysay meeshaas waqtigaaga maalinkii habeenkii marka seexanayso waxa la rabaa inaad qoratid shaqooyinka qabanayso dhan bari inta tirada bari qaadanayso lacagaha bari inaad qaadato aarabtid waxa soo idin inaad ka sii fikirtid
kadib ayuu ku analyze garaysan ama ku diyaarsan ama ku note garaysan isla markaas habeenkaas inaad seexato by the time aad wixii soo kacday almost maanta waxa qaban lahayd jadwalkaaga waa haysataa ma u baahnid maxaa qabanaa maxaa ka fikiraa maxaa yeelaa maxaa waxaas dhan ma u baahnid marka waxaa intaas filayaa inay wax badan dhiirigelin noo noqon doonto marka waxa waa muhiimadda hal mid ogaa weliga allah inta badan waxaa jiro nin motivator oo la dhaho waxaa la Eric Thomas waa motivator fiican waa YouTube-ka ka wada helaysiin fiidiyooyin badan oo duubay waa nin dhalinyar ah oo intiisa badan asiga hooyadiis aabiis iska yar oo gaalo laakiin inkastoo nin gaalo ahay way dhinteen eventually asoo 16 sano jir ah oo noloshiisa wuxuu bilaabay inuu kor u qaado 16 sano markuu jiray oo galaaskii ugu horeeyay iskuul xaadiray ugu dambeyn markuu 30 sano jirayna nin millionaire oo ahay oo farkasna kama noqon wax kale kama noqon laakiin nin hami leh oo ahay oo saasay tahayna double badge iyo wuxuu watay master oo jaamacadiis nin millionaire noo noqdo waa motivator Eric waxa la Thomas marka waxyaabo kaaga sheekayna wuxuu ku leeyahay mar alaala marka aragtid inuu xanuunku ku taabanayo mar alaala marka aragtid inaad siinay jabis mar alaala marka aragtid waxaan yeestaa u dhahay falaarta yaa yaqaan qaansada marka la tuuraayo qofka maxaa la sameeyaa gadaala loo jeeda si xoog ay ugu baxdo meesha la rabay xoog gaarto ama tiiro dheer ay sameeyso marka wuxuu ku leeyahay adiga extreme grey waxaanu idin xanuun markii ku marooyin waxa taa qofkii gadaal loo jeeday ugu dambeyn markii falaarta la daayay maxay sameeyeen hal mar waxay ku bixisay suxuul meesha target keertana waa ajiib gareena oo ah meeshii markaas qofkaas uu falaarta ku ridayo ku calaamadeysan lahaa hadii qofku dhufanay iyo hadii uu ku tababaranayo oo meesha shishka lagu baranayo kale marka wuxuu ku leeyahay adiga waxa tahay falaarti waxa laga yaabaa in ilaahay markaas oo kale ugu barooweena sabirkaaga dulqaadkaaga meesha ku jirta aad ogeen marka waxa la mid tahay ku leeyahay falaartas gadaal adiga lagu jiidaa that means xanuunka aad dareemis khasaarahan suuqa ay kala kulmaysan iyo jabkan maalin ku haysto guriga inta suuqii soo ka 4 saacado suuq maanta wax ka qaadanaysa seexanaysid dib u seexanaysid teamka kugu hareeraysan oo ku niijibinayo ku dhahay niman yahow waxaan ma shaqeynayo waxaan iska dhaaf marka wuxuu ku leeyahay intaas oo xanuun marka dareemis waxa extreme garaysa inaad la mid tahay falaartas la jiidaayo mar alaal markii la sii daayina targetkeeda ay gaari doonto marka adiga xilliga lagu sii daayin doono ma ogid dulqaado patient emoji dabar adeeg emoji walaal ninkaas waxa la Eric Thomas alla ninka oo motivator-ka Eric Thomas alla okay marka wuxuu ku leeyahay ma ogid marka adiga xilliga lagu sii daayin doono dulqaadka emoji kuusha meesha ku jirto waliga Allah ma ogid waxa laga yaabaa in maanta hadii laba tilaabo oo bari asii qaadid idin soo qoray qoraal ahaan ay kugu soo qoray markaas Eric Thomas sidoo kale waxaa jira ninka la dhaho asigana Les Brown allaha motivator-ka waxa waaye best motivator ever waaye waa idin soo qoray labada magac marka wuxuu ku leeyahay dulqaadka mooji mar walba guush meesha ku jirto ma ogid macnaha waxa la rabaa waxa soo idin marka aan fiidiyodaas daawad idin dhahayo waxa idin ka dhisayeen idaan hada qofka mindset ahaan u diyaarsan yahay mar walba wuxuu hami u leeyahay inuu si dhaqaaqo shidaal ku si dhaqaaqo hela fiidiyowga motivatorska iyo buugaagta sheekooyinka dadka guuleystay iyo waxaas in akhrisan isku daya waxa idin kala gelin war badan idin ku daaliyay haleen marka muhiimadda casharkan maanta qaadanayna marka waxay tahay qaladaadka ka dhaca qofka traderka waxa jirto qalad qof walba oo suuqa ay noogu cusub oo aan inaga mid ah oo sameeyo maxaa qaladkaas waxa loo yaqaan hunguriweynada iyo inuu ciyowta jiro qofkaas inuu ku fikiro tusaale kale suuqan aad maan soo fiiritay qof waxa aragtay oo expert ah oo dhowr sano ku jiro suuqan oo lacag ka sameeyay oo macalinkaaga ha noqdo qof kale oo saaxiibka ha noqdo adigii marka fikirkii suuqan aad ku soo gashay waxay tahay ku get quick rich saciyo ku taajiri kartaa suuqii $200 la soo gashay maanta qof aad signal ka qaadatay hadii aad aqoonin suuqa isla markaas la duweena ku gashay dhab suuqii wuu ku loos garay waxa la forecas balaa Allah ku wax laga ma sameeyo dadka waa lagu feeradaaliya wax laga ma qabto isla markaas maalinkaas koowaad waxay ku bilaabanaysaa niyadjabkaaga marka haddii suuqan aad ku fikirayso inta hal habeen soo kaad $1 milyan inaad samaysid you are the wrong way meel qaldana joogtaa meeshii kugu habooneed ma ahan dib aad u laaba kartaa laakiin haddii aad rabtid inaad meeshan joogtid oo waqti lacag ka samaysid $1 milyan inaad samaysid aad jadwal u sameeyso oo tusaale kale $1 milyan inaad sameeyo haddii aad rabo 1 year u qaadina $1 milyan inaad samaysid aad maalinkii meeqa laga baahan inaad achieve garaysid jadwalkaas oo kale yariis u sameeyso ma jiro maanta $1 milyan hal qof intuu sameeyo suuqaas ka sameeynayo yaa lagu daalinin hunguriweynada iska dhaaf suuqan wuxuu leeyahay steps la maro journalin waxa la jiro oo ah suuqa maanta tradeida qaadanaysid qoro
maanta inta rabto target tusaale kale account-kaaga $100 waay maalinka $10 adiga target-kaaga waa wali marka $10 ku dhaawaa 100 bib inaa heshid qofka marka dadka waxaa jiro laba loo kala qaadaa marka adiga aad lacag haysatid suuqa lacag markaa la haysatid you have waxaa xisaabtamaysaa markaas lodaa ku xisaabtamay marka suuqa aad taqaanid oo aan lacag haysatid markaas waxaa ku xisaabtami doontaa okay iga raali noqda hadda aqbala dadka dhan hadda wada aqbalaa okay mar alaal markii marka oo adiga aad rabtid ii sheeg inaa suuqan labada qof ay noqonayaan marka adiga account-kaaga uu yar yahay oo $1,000 $500 $200 aad haysatid waxaa la rabaa inaad ku xisaabtanto waxaa waa bibs tusaale kale inaad heshid trade 200 bib 100 bib ku dhaqaaqayo nadiif oo lod yar aad isaga geshid trade-kaasna sidaas aad ku heshid lacagtiisa iyo qofka markuu lacagta haysto account-kiisa lacag fiican ku jirto almost 3k ina ku jirto 2k ina ku jirto 5 10k ina ku jirto qofkaas marka muxuu sameeynaa suuq 10 bib uu ka raadsanaa lod fiican uu galaa isla markaasna kaaga baxa ama 30 bib marka qofkaas adigu wuxuu kugu niyijibinaa lodkiisa arkaysaa waxa leedahay qofkaas lod weyn uu ku galay hadda adiga trade-kan lod weyn ku gali lahayd adigana waa ku faa'iido lahayd laakiin waa isqasaaris that's not the point adiga maalinkii haddii maanta $10 samaysid oo اسبوع انت وندر سميس اسبوع كله مالو من $10 سمينيس اسبوع كله ترتيب حدني اكونك او سو كره 7 days من $10 سميس اكونك $270 مرويا still has the opportunity 0.2 او غوري markaas maxaa sameynaysa $15 per day hadana markaas sameys next month maxaa sameynaysa maalinkii ina waxa ku xisaabtamay content sameys maalinkii bisha kale ku xigay maxaa rabtaa maalinkii $60 ina sameys bisha ku xigay maalinkii dan $100 ina sameys $100 maalinkii ida sameynaysa waa imise 30,000 haysta per month marka waxa soo idil waxa la rabaa step waa baashan ha ku ordin ii sheeg ee suuqan gababa lacagtaada labada year over indicators suuqa kan jibin mar walbana isku day ina capital-kaaga suuqa ka ilaalisatid walaalow trade marka qaadanaysid oo arabta trade-kan ina qaadatid laba mid la ogaaw mid koowaad ogaanayso waxa waay trade-kan hadii aad qaato mar walba waxa ka fikirta aniga mar walba waxa ka fikirnaa marka suuqa ku cusubnahay lacagta TB-ga fiirsanaa bas waxa xisaabsanaa intee ka faa'iido trade-kan laakiin ma ku xisaabtano trade-kan intee ku qasaari karaa mid kale oo la rabo waxay tahay qof haddad waxa jiro suuq ku cusub ama dad waxa jiro suuqii inay bartaan rabaan almost inay lacag ka sameeyaan rabaan signal qaataan maxaa la sameeyaa marka trade-ka marka qofka signal qaadanaysa aan inta badan signalada marka soo diray trade ID-ha waxa soo raaciya trade-kaas inta bib stop loss-kii uu yahay that means waxa kaaga baahanaa inaad adiga ka fikirtid lacagta loss gareyn doontid lodka ku gali doonto ku sii xisaabtan hadii 32 bib way ku dhalodka 32 bibs way stop loss kan hada ku dhaho adiga maxaa ku banaan hada 0.10 ku gasho waa ina si ogaataa ina ku $32 ina qasaari doonto hadii trade-kaas una qaldamo hadii aad 0.5 ku galayso waa imis waa $5 $5 waxa ku dhufanaysa 32 lacag waxa fooq lacag la qasaaraysa marka waxa la rabaa almost si ogaa wax alaal waxa qasaaraysid go'aanka gaar suuqa fiirin kaliya intee ka hela faa'iido muhiimadda koowaad waxay tahay trade marka qaadanaysa ka fikir qasaarahaaga waxa ogaata inta qasaaraysid intee faa'iido kadib ay fiirinay mar alaal marka inta seeshino waa okay mid kale dadka inta badan qaladaad ay sameeyaan waxa kamid ah trade qofkii gala chartski inta computerka furto oo saas u furto ama mobilkiisa furto ama computerka furto oo wuxuu sameeynaa sida filan oo kale u daabana kan dal walba dhaqaaqay wax xisaabina kan dalka ma socdo suuq intuu ka bax emotions Allah waxyaabaha oo noo soo socdo waa kana okay maxaa kale noogu jiro shakiga tirada badan suuqa waxa shakiga qof ku dilaa trade-ka ama kugu soo laabta ama qasaar ku galiya ama inta ka yeela ama waxa keenayo waxay tahay trade aadan hubina qaadatay walaalkaygiiyo trade-ka hadii aad hubtid oo lodka aad ku qaadanayso inta qasaaris aad hubtid labo waxa awood u leedahay trade-kaas ilaa 10 bari inaa haysatid oo xiriir ah kaayo bilif ina aniga week ka horeeyay 4 bari oo xiriir ah waxa haystay hal lacag haystay 4 bari maalinka jimciye subaxeedii oo lacagta TB-da igu dhacay 4 days suuq lacagtu ila la laabanay maxaa ii ogolaaday marka lacagtaas ila inta sla eeg inaa haysto ana waliba lod fiican kula jiro suuqa waxa ii ogolaaday waxay ahayd trade-ka aan qaatay waa huway 200% meesha ugu talagalay inuu aadi doono lacagta lodka ku galay hadii stop loss iga qaadatana waxa ahay wax akoonkii uu ka maarmi karo oo saameyn ugu yeelanay cabsi yar iyo isu jirin at the time I heshid marka labadaas qodob marka heshid oo suuq lacagta ku galaysid iyo trade-ka qaadatay ina oo hubtid inuu confirmation fiican ku siiyay waxa awood u leedahay markaas ina suuqaas ii sheeg ku sii jirto in muddo ah ilaa target-kaaga ka ajiif garanays suuqaas ina ku jirto awood u leedahay okay maxaa inoogu xig waxa loo yaqaan emotions qofka inuu suuqi emotion ku wuxuu yahay
maanta dhan adiga dhan excited aad tahay suuqiya ka fikiray waxaa jiray ii sheeg markii suuqa ku cusbaay had intiina badan I know in idan wada haysto qof walbana uu soo maraa trade markaa qaato oo habeenkaas ayadoo aanu trade ii furin aad jifto sida qof alarm mobile ku xirta camal ba hour u soo kici jiray waa fiirinaa trade sa indhaha abaar markaa isku qabatid sheedaan wuxuu ku leeyahay inuu trade-kaagi stop loss ku dhacay waa khasaartay waa soo kacay waa fiirinay haddana waxaa sameynaya trade-kii abaar markaa indhaha isku haysatay haddana wuxuu ku leeyahay war inuu trade-kaagi TB ku dhacay ma fiirsid maanta oo dhan news soo baxay baba oo ku gelina marka emotions maxaa keenay xilliga suuq waa ku cusbaay almost lacagta qaadanay ma ogeyn trade-ku waa iska qaadan jiray lad weena ku gali jiray cabsidu wax ii keenayay ugu dambeyn ilaa maxay ogal wuxuu mar dambe mar is xisaabiyay is fiiriyay oo almost waqti badan aad suuq galiyay emotions si loo control bartay habeenkii waxa jeclaa jiray trade ina anos marka habeenkii ina seexdo waxa jeclaa ano trade ku jiro ina seexdo si raaxada subaxii ku soo kacay trade TB igu dhacay ina ku aar marka waxa soo idil qaladkaas uu soo wada maray marka waxa uu gudbi karnaa kow trade-ka qaadanayna oo hubinna inuu saxan yahay soo ku saxan yahay tusaale kale trade-ka inuu saxan yahay waxa ka wadaa tusaale kale jartskana joognaa waxa arkeena lacagtan inta badan rebelay ku sameeyay lacag hada oo real ma waxa aragtay trade-kana fiirsatay waxa dhahda 1 2 3 taabasho haysta meeshana si fiirsa hadana waxa dhahda 1 2 3 taabasho haysta isla markaas waxa ka fikiraysaa trade-kan inuu saant ku sameeyo halkan ku tago kadibna ku soo daato aadina la iska qaadat marka trade-kaas oo kale waxa waay trade strategy-kiisa saxan yahay laakiin trade aan valid ahayn tusaale kale muxuu kugu sameyn karaa trade-kaas oo kale trade-kaas oo kale wuxuu kugu sameynaa markii meesha kugu taabto isla markii inuu taabtay oo rejection soo sameeyay idin zoom gareeyo wuxuu sameeyay trade-kii trade line-kiina aan suganeynay uu dhawaaday wax yar uu dhawaaday rejection ku soo sameeyay oo ah candleskaas waxa aragtay dojiga aragtay suuqin sal inuu soo jeestay adigii waxa sameynay isla markii suuqiga ku orday waxa leedahay yaa ilaahay suuqiga ku dhaafin stop loss-kaaga halkaas dhiganaysa almost waxa leedahay noocan maal sida trade-kii suuqi u saaratay mar alaal marka bilay garisid waxa kugu dhacay fiirs meesha correction kugu noqona suuqi trade line-kaagi stop loss-kaaga la soo taabana isla markaasna suuqi waa laga saaray trade-kiina wuu saxnay SL-ka suuqi kaaga dhacay trade-kiina isla markii suuqi waa laga saaray maxaa kugu sababay trade-kii maada isku hubinin confirmation badan maada u raadsanin waxa jiro ani jadwal aad trade-yada ku qaato oo waa kan darbigayga hadda meeshan fadhiyo miiska uu dhagan yahay oo ah waxa suuq marka waxa ii qoran wax walba oo confirmation suuq ku qaadan karo maxay kala yihiin ina kow fiiriyo trade line-kayga maxaa lagu imaaday qaabkee lagu imaaday impulse correction situation maxaa ina fiiriyo labo ina fiiriyo inta taabasho haysta saddex ina haysto button ka haysta hadii laba button hada si hel confirmation lagu daro kala haysta kadib candle confirmation aan qaadana kadib waxa qaadana lacagtii saameynta ku leedahay soo analyze gareena almost waa trade boqolkiiba 200 soo hubiyay waa qaadana stop loss iga dhacay xitaa almost waa soo qaadana mar labaad mar saddexaad qaadana hada stop loss iga dhacay sababta maxaa keentay kalsooni waxa haysta trade-kan inuu mar walba jihada u diro oo aadi doono taas waxay keenaysaa marka in trade-kaas maanta dhan ku jirto almost marka meesha maxaa ka dhacay 1 2 taabashadii saddexaad suuq maxaa u socdaa korkaas u socdaa adima ogeyn inta ka qaadato trade-kii stop loss-ka kaaga dhacay suuqii waa ka nijabay trade-kii marka uu ku saxnaayna marka uu ku saxda sax uu noqdo xitaa ma qaadanaysa hadda dii abilay garay wuxuu sameeynaa ila fiiriyay trade-kii uu baxaa taabashadii saddexaad oo noo soo sameeynaa isla markaas si nadiif oo qurux badan u daadana waliba wuxuu ku tagay ascending oo sameysana ascending-gaas ku tagaa suuq u rafan oo u jeedaa hada soo zoom gareeyo okay suuqii sidii loo soo rido fiiri meeshan fiiri marka waxyaabaha anagana qaladka inteena badan noo keenayo waxay kamid tahay hadda fiiri ascending haysta suuqii ascending trade line-kaaga lagu dagay saddex taabasho haysta candle confirmation haysta suuqii sidaas kugu sii daadana ilaa iyo wuxuu daadana lacag waali ku dana mar alaal marka hubisay trade-yadaas oo kale kugu saxan yihiin waa marka qaada kartid mar walba ka fikir trade-kan possibility probability inuu analyze gareys tusaale kale hadda possibility inta ugu fikirna aad ina dhahno trade-kan hadii halkan tago oo aan sugano inuu mar walba soo daadana markan oo kale markuu mar walba trade-kan ko possibility ya falaaga laga qaata tusaale kale ina dhahdo markuu kan ku soo dhaqaaqiisa u dhameysto correction-ka oo gali doona laga qaata laakiin trade-ka markuu oo saana kale ku yahay oo probable uu yahay risk entry waa ka soo qaadan kartaa trade-kan ko possible yahayna reduce oo laga qaata cashar qurux badan kaas iga sameeyo ii duubiya waa YouTube ka soo dhigi doona okay marka ina ogaatid arintaas waa mid qodobka ku xiga maxaa waaye ina shakiga tirada badan oo amaanto dhan ishak mid ogaaw anigan oo
waxa waa mentor ahaan idin kula shaqeynaa walaalkiina oo wax yar idin dheer idin sheegay maalin walba trade hadaa soo diro ha ku qaadanin engineer Libana soo falanqeeya ku qaadanin adiga falanqeyso suuqii analyze gareyso an almost maalin walba signal waa soo dhigi karaa oo trade ID la soconin muhiimadda waxa waa mataqaana marabi gacanteedina qof walba idinka in kamid ku sii jiro muhiimadda waxay tahay nin walba inuu isku filnaansho oo gaaro soo isku filnaansho ku gaari karaa marka trade-kii aan soo analyze garay qof walba sidaas oo kale inuu analyze gareysto oo ogaado wixii aan iga qaldan wixii iga saxan isla markaas aad go'aan shakhsiyan helaysaa wixii aan ku soo falanqeeyay oo xataa inta badan faahfaahinaa ku soo qoraa dhaha trade-kan halkan sababtaas uu ka sameeyay trade-kan intuu saas u yeelay trade-kan hadduu halkaas gaaro waxaasana opportunity ku qaadan karno muhiimadda marka waxay tahay walaal Telegram-ka iyo YouTube-ka waxa waa qofka linkiga Zoom ku soo dir waa ka heli doontaa insha Allah daily profit forex academy aan ugu qoran okay Zoom-kan 3 daqiiqo nooga soo har salaadiina waa joognaa iska soo gabagabeynayna okay sidoo kale maxaa marka filashada degdega qodobkan qodob muhiim waay qodobka muhiim wuxuu ku yahay tusaale oo kale waxa rabta trade-kii qaadato trade-kan oo kala qaadato trade-kan oo kale markaa qaadatay isla markaas fikir waxa kugu jiro saacado gudaheeda inaad targetkaaga oo 200 oo bib suuqan akeesh mar alaal markaas ku fikirtid waa mar alaal markaas suuq aad wax ka keenin macna maanta oo dhan jarska asaas ina u fiirsan indhaha ku heys target suuq wuxuu u baahan yahay waqti u baahan yahay hadii aad day trade dar tahay iyo hadaa swing trade tahay labadaas adeeg go'aan ku kala tahay day trader waxa laga wadaa qofkii maalinkii bis inuu 24 hour ka badan suuqaas ku jiro marabo oo targets ka qaato dadkaas oo kale day trader lahaa suuq 40 bay 30 bay ka raadsadaan tusaale kale hadda trade-kan inta biibo soo dhaqaaqa fiir 1 ilaa inta soo dhaqaaqay 143 biibo dhaqaaq ninkaas oo kale wuxuu ka qaataa halkan oo kale qaadana 40 biibo 40 biibo qof qaadan laakiin swing trade marka tahay swing trade waxa waay qofka akoonkiisa yar yahay oo trade-yada 200 ilaa 300 biibo ilaa 400 biibo inuu la socdo oo rabo waay marka qofkaas oo kale muxuu sameeyaa patient u baahan yahay trade-kan almost 3 days ina qaadata laga yaabaa inuu 200 biibo inuu ku achieve gareeyo adiga trade-ka hadii aad hubtid mar walba iska dhaaf hadda trade-ka impulse si halkan correction ka gal rabaa mar wakaas inta dhigan doonta stop loss ka marka soo rartid scale ku sameeyay trade kale inta ka qaadanay hadan hoos u sii raacay marka muhiimadda waxay tahay inaad ku fikirin filashada degdega si trade-kan waqti uu leeyahay waqtigiisa ka qaato iska daba soco haduu qasaar ku mar walba iska gareyso jarjaro sidaas oo loo sii soco waxa rajeynayaa 45 minutes qurux badan inaan qaadanay wax badan inaga mid inaan fahanay waxa rajeynayaa in intaas oo maantadan muhiimada uu wada u sameeyay waxay shalay waxa arkay group chat-ka team badan oo ka caawinayo qaladaad badan ee galayeen oo aan hore u soo galay oo aqoon badan ku soo loos gareeyay oo lacag zaid u tiro badan soo lumiyay ugu dambeyn alxamdulillah waxa waa suuqii waa ka aarsaday ilaaha maad iska leh marka waxa idinka rajeynaa inaad saas oo kale ku dhaqantaan qaladaadkana aad iska ilaalisaan mar walba aad trade qaadanaysidna walaalow fikirkaaga ku qaado qof fikirkiisa iska dhaaf hadii aad qof xor ina noqotid suuqan qof adiga oo kaaga cilmi badan ma lahan tusaale kale anigan suuqan marka waa aqaana ku dhahayo that means aad ma bari kartid ma qof haduu wax sameeyay adigana waa sameyn kartaa war hadii qof sheeko waxa jirto inka suuqtiga oo naga go'iraba oo 1 minute wax ka yar hart hadda koor waxa jirto fikir qof bini aadin oo 1 mayl 4 daqiiqo ordi karo ma jirin ugu dambeyn waxa dhacday 1946kii nin oo magaciisa hilmaamsana wuxuu sameeyay wuxuu achieve gareey targetkii 4 daqiiqo inuu 1 mayl ku ordo maalinkaas markuu ninkaas go'aankaas uu sameeyay ilaa imaantadan la joogo 20,000 oo qof oo cunug arday iskuul dhiganayo oo ku jiro achieve gareey 1 mayl inay ku ordaan 4 daqiiqo macnaheedu ayaga maxay aamineen waxaas nin